waa qaybtii labaad ee qisadii jacayl ee Qays iyo Layla. Waxay noo maraysay Qays oo Layla loo diiday. Intaa kadib, mucaashaqa Qays wuxuu noqday ruux maran, qalbigiisuna mar qura ayuu doorsoomay. Waxa uuna qaadan waayey inuu waayo jacaylkiisii. Layla qudheedu aad ayay ula ildarneed jacaylka Qays, ha yeeshee awood uma lahayn inay garab siido, oo waxaa tibaab la hortaagnaa qoyskeedii. Dhibaatadii ugu weyneed waxay dhacday markii Layla la soo doontay, Qaysna uu ogaaday. Maalintaas ayuu galay kaynta, wuxuu weheshaday cidlada, waxaa miir qaaday jacaylkii awoodda badnaa ee in badan qalbigiisa gubayay. Wuxuu mar qura soo hinqaday murti jawharadda ka qurux badan, aadna u qiiro badan. Runtii waxaa wax la xuso ah, Qays iyo Layla qisadoodu maaha wax muuqaal lagu soo koobi karo, oo qisada kale ayay ka macaan tahay kana murugo badan tahay. Waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah, Qays asagoo socda, qalbigiisa iyo meerkiisuna uusan joogin, ayuu wuxuu soo maray masjid laga tukanayo, waana iska ag maray. In yar kadib ayuu haddana meeshii soo maray. Dadkii ayaa u yeedhay, wuxuuna yidhi, Layla ka warrama. Waxay dhaheen waxay qaadatay caqligaagii, waxayna fasaadisay noloshaadii. Annagoo tukanayna ayaadna martay, haddana waadna soo martay, ilaa haddana Layla ayaad ka fikiraysaa. Markaas ayuu yidhi, wallaahi maa ra'aytukum, wallaahi low kuntum tuxibbuuna allaha kamaa uxibbu Layla maa ra'aytumuunii. Taas oo ula jeedo, wallaahi inima jeedin, wallaahi allaan ku dhaartaye, haddaad ahaa laheedan kuwo Ilaahay u jecel sida aan Layla u jeclahay, ima aanad aragteen. waxaa ka mid ah gabayadii qalbitaabadka ahaa ee uu tiriyey, low kaana lii qalbaani lacishtu biwaaxidin wa taraktu qalban fii hawaaki yucadabu laakina lii qalbun tamallakahu alhawaa. oo uu ula jeedo, haddii aan lahaa lahaa laba qalbi, waxaan la noolaan lahaa hal mid, waxaan ka tegi lahaa qalbiga u rafaaday xamaasadaada iyo jacaylkaaga. gabaygu waa dheeraa, laakiin waan soo gaabsaday. Layla waa la guursaday ayadoo dhibano jacayl ah. waxaa la sheegaa ninkii koowaad ee guursaday inuu ka waayey wax hami ah, iskana furay. sidaas ayaana gurigii aabbaheed loogu soo celshay, ayadoo maqana jooga ah. waxay ka welwelaysaa Qays iyo xaalka uu ku sugan yahay. waxay tirisay gabay ay ugu barooranayso Qays, kaasoo ka soo burqaday qalbi quusta diiday, aadna ula ildaran dareenka qaangaaray ee u qaaday macallinkii nolosha ibaheeda baray. saaxiibayaal, waa noo qaybteenna saddexaad. waxaanu ku soo qaadan doonnaa gabayadii jacaylka ahaa ee Qays uu tiriyey. Amaan Allah.